Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaygu waa idin salaamay, waa walaashiin xayaad oo idinla markeli kulanti wanaagsan. Isku soo noqodo waxaan kusoo dhawaada channelkayga haddaad igu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka. Maanta insha Allah waxaan rabaa inaan idin la share gareeyo shaqadii aan qaban lahaa galabta ama bacda qado markii la qadeeyo kadib hawsha la qabto insha Allah. Sidaa darteed ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago muuqaalka maanta. Biidhnillah waxaan kaloo jeclaystay in aan sidan hortiina ku imaado anigoo niqaaman. Marka waxaan ka codsanayaa fadlan walaal haddaad ka hesho videogayga inaan like ii saartid. Like waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkeena naftii faafo. biidhnillaahi alkariim marka insha Allah hadda waxaan qabsan doonaa shaqadeena. TV-ga waxaa iga shidan quraanka ruqiya la isku daweeyo biidhnillah. maadaama caajis iska jira caruurta iga yar xanuunsan tahay quraanka ayaa shitaa marka insha Allah walaalahayga sida ii la socda aad ayuu u wanaagsan yahay gurigiina ku shita sidoo kale idinka xitaa shita wuu idin fiican yahay oo waa dawo biidhnillah alkariim marka insha Allah hadda u jeedaan walaalahayga qaaliga guriga ayaan xaaqaya daaqadii ayaan u furay oo waxa waaye uu leersanaya waxa wanaagsan guriga marka cunto lagu kariyo ama yacni aroor horeba ee tahay oo lasoo tooso in aad dariishadaha ama daaqadaha aad iska furtaan si hawo cusub oo saafi ah idinkugu soo gasho oo macaan marka sidaa ayaan aniga aad u jeclahay daaqadaha dhan waa wada balaqa mar waliba aad ayaan u jeclahay maadaama samboor aniga aan qabo oxygenka ayaa igu yar soo marka waxaan jeclahay meel yacni leer leh ama leer badan ee kasoo galayso in aan yacni helo biidhnillah alkariim marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah sidaa ayaad ila soconaysaan hadda hawsheena ayaan qabsanaynaa biidhnillah alkariim waxaan sameynaya waxa waaye afternoon routiinka insha Allah just waan jeclaystay maanta inaan idin la share gareeyo guriga waad arkaysaan sida isku dhex yaala maasha Allah markay caruur joogto oo la dhan yahay family buuxa la yahay maasha Allah wuxuu waaye waxa waaye gurigu isdhexdaadsanaanaya marka insha Allah taas la isku lama yaabayo oo guri walba oo yacni dad ku nool yahay waa sida kaliya waxaa la isku dheeryahay in la hagaajiyo oo yacni la iska toosiyo oo la habeesto biidhnillah alkariim marka waxa waaye muuqaalkayga maanta just motivation in aan idinku dhiirigeliyo caajiska aad iska qaadaan oo fadhiga ka kacdaan biidhnillah alkariim wax kale ma ahan qof walbana inta yar uu haysto uu hagaajisto habeesto isku toosisto biidhnillah muhiim ma ahan in aad alaab qaali ah haysatid oo yacni aad expensive ah just waxa waaye adoo alaab yacni raqiis ah haysatid ayaa gurigaada qurxisan kartaa walaalahayga qaaliga ah sidaa ila socda biidhnillah alkariim marka nolosha dhabta ah laga hadlayo waxa waaye ma ahan in aad yacni haysatid waxyaabo oo qaali ah just kaliya waxa waaye waxyaabaha aa haysatid uun isku habeeso ilaahayna ugu mahadceli biidhnillah alkariim caafimaad haddii aad haysatid intaa ayaaba muhiim ah qofkii maanta caafimaad haysto oo waxa waaye ilaahay caafimaad siiyo wax ka maqan ma lahan ilaahay ha ugu shukriyo 1000 jeer waxaa jiraan dad badan oo maanta caafimaad ilaahay ka tuugayo wax walbana waa iska helaysaa haddii aad caafimaad haysatid just waxa waaye dadaal waa gaaraysaa marka insha Allah walaalahayga qaaliga anina inta yar aan haysto ayaan idinla share gareynayaa biidhnillah alkariim oo aan nadiifsanayaa sidaa ila socda waxa xaqaya hadda saad arkaysaan walaalahayga qaaliga ah kadibna waxa waaye kuukarkii ayaa masixi doonaa oo aan sii dhaqay marka hore biidhnillah alkariim just waan qalajin doonaa oo hadda ma dhaqaayo waana arki doontaan hadduu rabbiga awoodda la idmo hadda kuraasta ayaan toosinayaa aniga waxa waaye shaqaale nooma joogo shaqaalaha waa necebnahay just kaliya hal maalin uunba u wacnaa maalinta dharka aan dhaqanayno oo kaliya inta kalena gurigeena annaga ayaa iska hagaajisano oo waxa waaye alxamdulilah maadaama aan ku joogno dad badan annaga ayaa isku filan alxamdulilah marka waxa waaye naaga shaqaalaha ma fiicno iska ilaaliya ayaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah qaarkood waa tuugo qaarkoodna waxa waaye caafimaadkooda ayaaba buuxin marka insha Allah take care ayaan idin leeyahay iska ilaaliya hawshiin idinka iska qabsada intaas waxa waaye jimicsi ama exercise ayayba idin tahay ciyaalka yaraa ayaa idhibaya maasha Allah ilaahay ha noo dhaafa caruurta meelaha ay iska soo socdaan maasha Allah ilaahay ha noo xifdiyo ilmaha caafimaadna Allah inoo siiyo annaga iyo intii muslim ahoo dhan marka insha Allah walaalahayga sidaa ayaan usoo masaxayaa meelihii aad arkaysaan miiskii iyo muraayadihii iyo waxaas ayaan dhaska ka qaadaya insha Allah way la socon doontaan biidhnillah alkariim waxaan idinka codsanayaa walaal qaaliyaal
haddaad igu cusubtiin inaad channelka subscribe noo saartaan 100,000 gaarsiisaan idinka ayaa walaalihiin ah ay garab qaban kartaan insha Allah anigana waan dadaali doonaa biidnillaahi kariim mar walba waxaan soo gelin doonaa wixii aan qabsanayo hadduu rabbiga awood la ii saamaxo marka idinkana waxaa waaye subscribe-ka iigu dadaala iyo like-ta fideogana share sii dhaha si yacni fideogaygu dad fara badan usii gaaro oo loo arko aan isgarab qabanno walaalahayga qaaliga ah insha Allah waana mahadsantihiin jasaakallah khayr ayaan idin leeyahay markii aan guriga soo dhamaystiro soo hagaajin oo arki doontaan biidnillah maantana ma hadli karo oo waxaa waaye inta fideoga uu socda dhan ma daldalmi karee daawada ayaan idin leeyahay jasaakallah khayr inta muuqaalkan lamid ah aan ku kulmi doonana waxaan idin rajeynayaa nabad iyo caafimaad insha Allah meel walbo caalamka aad ka joogtaan walaalahayga qaaliga ilaahay ha idin siiyo cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad taama insha Allah inta xanuunsanna Allah caafiya ayaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله dhamaystirta fideoga jikadii ayaa hadda iska masaxaya iska nadiif waay wasaq badan ma lahan walaalahayga qaaliga marka waxaan idin leeyahay khayr fara badan ayaan idinku dhaafay insha Allah جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله